Fuad Yusuf Ali oo ahaa duuliye ciidan ayaa u cararay Ethiopia 27 bishii Maarso kadib markii uu dhaleeceeyay cadaalad darro ka dhex jirta militariga dalkaasi sida ay qortay warbaahinta RFI oo isaga soo xigatay. Fuad waxa uu ka tirsanaa ciidamada cirka Djibouti muddo 10 sano ah waxaana ku andacoonayaa inuu la kulmay tacdiyo kala duwan iyo cadaalad darro. Dowladda Djibouti ayaa markii dambe soo saartay amar ah in la soo xiro Yusuf oo Ethiopia ku sugnaa laguna soo wareejiyo horaantii bishii Abriil. xilli uu isku diyaarinayay inuu gudbisto codsi magangeliyo ayaa duuliyahan lagu xiray Addis Ababa kadibna waxaa bilowday olole dhanka online-ka ah oo lagu dalbanayay in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo. hase yeeshee dowladda Ethiopia wax jawaab ah kama aysan bixin. taariikhda Fuad oo kooban. Fuad waxa uu bishii Oktoobar ee sanadkii 1983 ku dhashay magaalada Djibouti gaar ahaan xaafadda Xayaabley halkaas oo uu ku koray waxa uuna wax ka bartay jaamacadda Djibouti. duuliyahan u xiran dowladda Djibouti waxa uu dhalay 7 carruur ah oo kala ah 5 wiil iyo 2 gabdhood. ciidamada ayuu waxa uu ku biiray sanadkii 2006 waxaana loo diray dalka Morocco oo uu ku soo qaatay tababarka duuliye. 4 sano ayuuna halkaasi ku maqnaa. 2010 waxa uu ka shaqo bilaabay xerada ciidamada cirka ee Djibouti waxaana la siiyay xidig. 2014 waxaa loo diray Koonfur Afrika si uu u soo qaato tababar dheeraad ah oo duuliyanimo. 2 sano ayuuna halkaasi ku maqnaa. sanadkii 2019 ayaa la siiyay xidigtiisii labaad oo laga dhigay 2 xidigle. bishii March 27 ee sanadkan ayuu dhinaca Ethiopia u goostay magangelyo ayuu bishii Abriil weydiistay Ethiopia. 15 Abriil Ethiopia waxa ay ku soo wareejisay Djibouti. xaaskiisa oo xogtan oo dhammaystiran xaqiijisay ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in sirdoonka Ethiopia ay ku wareejiyeen dowladda Djibouti. ubadkiisa ayuu waxa uu sii u waayay. cadaadis ayaa la saaray. markii uu hadlayna mushaarkiisii ayaa laga jaray. muddo 4 bilood ah ayuuna mushaar qaadanayn ayaa hadalkeeda raacisay. wuxuu ahaa nin shaqo jecel. 4 subaxnimo ayuu kici jiray. waxa uuna ka sheegtay cadaalad darro ka dhex jirta ciidamada dhexdooda ayay BBC-da u xaqiijisay. waxa ay tilmaantay in xabsiga Gabood mas'uuliyiin ka tirsan ay bishii May soo waceen waxay naga dalbadeen inaan cuntada ugu keenno xabsiga. qoyskiisa waxa ay sheegeen in aan weli maxkamad la horgeelin sidoo kalena aan loo ogolayn in ay la kulmaan. maanu aragba anagu weli maanu aragba bas Gabood anagu cuntada waan geen jirnay daaqada umbana laga qaadayay laakiinse weli indhahayaga maanu saarin ba anagu. shalay baan fiidiyogiisa kow aan aragnayba wajigiisa. cadaalad baan rabaa, cadaalad xaqaan rabaa in odagayga loo helo. bishii aynu soo dhaafnay qareen qoyskiisa ay u xil saareen ayaa helay fursad uu ku booqdo xabsiga Gobaad halkaa oo uu ku xiran yahay tan iyo markii si qasab ah loogu celiyay Djibouti sida ay warisay warbaahinta RFI. soo musaafiriinta qasabka ah ee Ethiopia ee Fuad ayaa dhalisay ficil cara leh oo ka imaanaya qurbo-joogta reer Djibouti. kuwo badan oo ka mid ahna waxa ay sheegayaan in duuliyahani uu halis ugu jiro in lagu dhibaateeyo gudaha waddankiisa. dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha ee reer Djibouti iyo siyaasiyiin badan oo ku nool dibadda dalka ayaa dhaleeceeyay ficilka dib loogu celiyay Fuad ee Ethiopia ay ku dhaqaaqday. dibadbaxyada lagu dalbanayay sii deynta Fuad. xaaladda magaalada Djibouti ayaa maanta degan kadib markii ay shalay ka dhaceen halkaasi banaanbaxyo ay dhigayeen dad ka careysan askarigaasi ka tirsanaa ciidamada cirka oo laga soo musaafiriyay dalka Ethiopia kadibna gacanta loo geliyay dowladda Djibouti. wararka waxa ay sheegayaan in booliska ay tiro dad ah u qabqabteen banaanbaxyadaas iyaga oo ku eedeeyay inay ka ahaayeen mas'uuliyiin. waxaana qaar ka mid ah dadkaasi lagala baxay guryahooda waxaana loo kaxeeyay meelo magaalada ka baxsan oo xero ciidan ah oo la yiraahdo Nagaad ayay xaqiijiyeen goobjoogayaal. shalay iyo xalay waxaa dhacay mudaharaad oo dhibaato geystay ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Muumin Axmed Sheekh. waxa uu intaasi ku daray dadweynaha waxaan ogeysiinayaa in markii mudaharaad la sameynayo dariiq loo maro uu leeyahay ruqsad baa la weydiistaa. dariiq baana marayaa baa la yiraahdaa. halkaa baan gaarayaa baa la yiraahdaa. waxaa dhacday mudaharaadyo fool xun oo dhibaatooyin badan geystay. dadweynaha waxaan ogeysiinayaa marka mudaharaad la sameynayo mudaharaadku dariiqyo loo maruu leeyahay. ruqsad baa la weydiistaa. dariiqaa baan marayaa baa laydhaa. halkaa baan gaadhayaa baa laydhaa. markaa intaa uu mudaharaadku sii marayana marka ruqsadda la siinayo waxaa la ilaaliyaa sidii mudaharaadka dariiqa uga bixin uu dadkii iyo duunyadii agagaarka u saameyn baa la eegaa. wasiirka ayaa isu soo bixi shalay ku tilmaamay kuwa aan sharciyeysnayn oo dad badani ay wax ku waayeen. waxa uu tilmaamay inay jiraan gawaari la jijibiyay iyo dukaano la billiqaystay. dadweynaha waxaan uga digaynaa mudaharaadyada caynkaas oo kale ah in aysan dib ugu noqon ayuu u diray wasiirka. waxaa dhacday shalay galabtii mudaharaad aan sharciyeysnayn oo dad badan ay wax ku waayeen
ha noqoto baawur la jajabiyey ha noqoto dukaanno la biliqaystay waxaasina wax aan oggolaan karayno amba aan ruqsayn karayno ma ahin amba aan dul qaadan karayno maaha dadweynaha waxaan uga digaynaa in ay mudaharaadyada caynkaas oo kale ah ay dib ugu noqon intii shalayna gaadhay way nagu filantay intii shicibka shalay gaadhay way ku filantay annagu waxaan mas-uul ka nahay dadka isku socodkooga alaabahooga iyo amnigooda amnigaas inuu qofna ku xadgudbo ma oggolaanayno ha la ogaado maanta waxaa magaalada Jabuuti lagu arkayay booliska ka hortaga rabshadaha si ay ammaanka u sugaan dowladda Jabuuti wax war ah kama aysan soo saarin arrinkan balse wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti ayaa shalay tabartiisa Twitter-ka ku soo qoray in dambi ay tahay oo lagu ciqaabi karo ciddii ku dhawaaqda kacdoon dadweyne ama rabshado inay waddanka ka sameeyaan wuxuu intaasi ku daray dowladda ayaa mas'uul ka ah amarka iyo kala dambeynta waxayna xaqiijin doontaa in la xushmeeyo sharciga cid kasta oo sharciga ku xadgudubta waa la soo qaban doonaa sharciga ayaana la horkeeni doonaa ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti Muumin Axmed Sheikh ma uusan soo hadal qaadin xariga Fuaad iyo waxa ay ka yeelayaan xaaladiisa waddanku sharci buu leeyahay sharciga cid ka sarraysa ma jirto qaraabo ha noqoto saaxiib ha noqoto oday ha noqoto islaan ha noqoto inayar ha noqoto nin kasta oo sharciga ku xadgudbana waa la soo qaban doonaa oo sharciga la tiigsan doonaa waxaa jira war sheegaya in dowladda Jabuuti ay xabsiga dhigtay dhowr qof oo dumar u badan kuwaas oo ku mudaharaaday xariga dowladihii hore ka tirsanaa ciidamada cirka dalkaasi Fuaad Yuusuf Cali oo intii uu gadooday dib looga soo qabtay Itoobiya muuqaal la sheegay inuu ka soo duubay gudaha xabsiga ayaa qabsaday baraha bulshada muuqaalkan ayuu Fuaad ku cadeeyay in ay musqushu hoy u tahay wax uu ku cuno ku cabo seexdo kuna tukado waa aniga oo labaalihii Fuaad Yuusuf Cali waxa aan horta jeclaystay in aan maaragtay idin duubo meesha aan seexdo waa suuliga baan qarabsada habeenii dharaar salaada ku tukada caagadaha biyaha kiisiin baa la ii soo dhuraa oo daaqad shabeega la iga soo dhiibaa suuligeeda kiisiin waxaa ka soo baxa kaneeco askarigan gadooday ayaa sheegay inuu ka baxsaday waxa uu ugu yeeray cadaalad darro ka dhex jirta ciidanka dhexdiisa qoyskiisa ayaa sheegay inuu Itoobiya weydiisay magangelyo balse muuqaalka uu ka soo dhex duubay xabsi ku yaala gudaha Jabuuti ayaa dhaliyay carab ballaaran qoyska duuliyaha xiran ayaa sheegay dadka la xiray xalay in ay ku jirtay gabar 16 jir ah oo dhalay duuliyaha iyo 3 gabdhood oo uu abti u yahay lama oga sababta loo xiray gabdhahan iyo meesha lagu haayo toona imika xalay tole inan yaroon dhalay oo aqalka hortiisa taagan ay askartu intay u timday si xun oo cadaalad darro u dishay inantii yareed aqalka iyo dhex jiifta imika tu kalena shalay casarkii baa layga qaado layga xidhay oo aad dhashay oo aan dhalay sabab ma loo xidhay bannaankay taagneed baa lagu xidho laga qaaday ciyaalkii baa la leeyahay ha eegina dibaddii ha istaagina dowladda Jabuutina wax war ah kama soo saarin mucaaradka ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalka in uu ka dego kursiga aan la joogana waqtigii uu nasan lahaa iyo cid kooban aanan u burburinin dalkayaga oon dhinac ka wada jeesano midnimo qaran aan ku shaqayno doorashooyin xor oo xalaal ah ay dhacaan Ismaaciil Cumarna waa nin daa waa nin waqtigiisii tagay waa nin 20 sanadood in ka badan soo talinayay isaguna waxaan leenahay ha iska nasto ha fadhiisto haddii uu wax maqlayo uu fahmayo haddii uu wax maqlayn uu fahmayna sidii madaxdii hore uu burburi doonaa taariikhda dhinaceega qurunkiiyo qushaashkana waa uu ka geli doonaa Ismaaciil Cumar Geelle oo ah madaxweynaha dalka